warkaaga in la rubsaday in la beesadabto waxa ugu horeyso waxaan arkayna inaan ka jawaabto waxa la arkayn lama arkayo mugta waxa garkaaga cad ka dalbay markuu madoway la gaarayo ma arki karna anaga wasa laakiin muuqaaladaas labada qofood oo maalin kula socoto maalin kale kula socoto ina aqoonsataa laga haddaan wajigooda aqoonsado hadda adiga ku hadlaya haddii hadda lagu sawiro adiga sawirkaaga aniga si fiican indhahaygu si fiican uma shaqaynayaan uma arko sidaan oo kale qof markii maxkamad la keeno uu qofkii maxkamadda la keenay cadeemihii markii la rabo in la tusiyo dhahayo aniga indhahayga wax kama arki oo loo baahan yahay araggiisa aad ay u adag tahay laakiin si caadi u dhacdaa marka qaar in loo soo wareejiyo dhaqaatiir indhaha oo qofkan indhaha inuu wax ka arki in kala noo hubi aad ay u dhacdaa oo xitaa caado dhaqameeda markii qof laba qof oo kale wax isku dhuftaan oo kale qofkan heerka ishiisa wax gaar dhakhtar indhaha inuu hubiyo oo baartaan indhaha marka u sameeyno qofka hadalkiisa iyo iswalwaalidaas indha cadeeskiisa inta badan anaga macno nooguma fadhiyo oo baaritaanada aan sameeyno ayaa wax walba indhihiisa ku saabsan noo sheegayo marka waxaa laga yaabaa qofka ina aragteen oo la dhahayo inta u jeedaa kormiya inta oo laga yaabo inuu dhaho may xitaa kuma jeedi uu dhahayo waxaa leenahay isdeji wax walbo indha cadees looma baahno wax walbo anaga baaritaan indhaha ku saabsan waa aragnaa inaad wax arkaysin waa u jeednaa ee runta iska sheeg mise waxaan kuu qornaa qofkan wuu isyeelyeelayaa oo xitaa waxaan ogaan karnaa qofka inuu dhinacyada wax ka arki karo tusaale ahaan inuu toos wax ka arki karo iyo inuu araggiisa qayb ka mid ah wax arki karin intaasoo nooc aragtida qaabka uu arkayn xitaa waa lagu cadeynaa report nooc hadii loo baahdo xitaa shuruutada u baahdo loo qori karo macnaha ayaa loo fahmay hadda inaan rabo inaan dacwadan aan ka qayb galo